iyo warshadaha mudane Cabdiwahaab ugaas Xuseen ugaas Khaliif aqoon-yahano iyo waliba urur ka socda ururada ka dhisan magaalada Gothenburg ee hidaaya dhaqanka oo la yiraahdo Banaadir Midnimo Foreigning barnaamijkeena waxa ugu horeyn doona aayadaha Quraanka Kariimka iyo kelmado diini ah oo inoo soo jeedin doono sheekheena Sheekhuna Cabdiraxmaan Sheekh Muxyidiin Sheekh Cali كريمka iyo xasuusinta ka bacdi waxa inoo xigi doona khudbadaha waxa khudbada ugu horeeya Xasan Muuse Cali Qoslaaye oo ku hadli doona magaca guddiga qabanqaabada xafladan quruxda badan ee cawadan iskugu nimid waxa ku xigi doona abwaan kamida abwaanada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Gothenburg ee wadanka Sweden abwaan Gurfe sidoo kale inta waxa xigi doona khudbad inoo soo jeedin doona aqoon-yahan la yiraahdo Cabdullaahi Hanti Wadaag oo kamid ah aqoonyaasha Soomaaliyeed oo ayadana kamid ah gabdhaha magaalada Yatobori sidoo kale inta waxa daawan doontaan ciyaar kamid ah ciyaaraha hidaha dhaqanka Amaaniraad oo ciyaar kamid ah ciyaaraha hidaha dhaqanka Soomaaliyeed waxa soo bandhigi doona kooxda Banaadir Midnimo Foreigning ee ka dhisan magaalada Gothenburg عشان شرف أنا قلت لك قلناي سو دوين تاريخ الوزارة الحقيقية أهنا وزيرك وزارة جناعسي ورشدها مضاني وغاز مضاني عبدالوهاب وغاز حسين وحنحكي دون عشان شرف أنا قلت لك قلناي سو كلام تو حنا لجوكتا فنانات كمية فنانين تقارن كصومالية اللي يراد سعدية محمد حسين سعدية الصومالي خطبة وزيرك أيها ينوحي دون تصدق السؤال يتلوين يبتو جديد دون تان رئيس الوزراء الحقيقية sidoo kale inta barnaamijka ayaan noo xigi doona Calasow iyo Cabdullaahi Jawhar iyo sidoo kale Qoslaaye isku dubrideen sidaas ayuu barnaamijkeena inoogu taxanaan doonaa balse marka hore ayadaha Quraanka Kariimka iyo Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Muxyidiin Cali falyatafadal mashkuuran حبيبه وخليله وخيرته من خلقه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه وبعد يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها صدق الله العظيم ولا ليال وعام الله إلهي إنك به سبحانه وتعالى نوصل تقري كل كان أروك ولا لا إيمانك ولا لا وضنيتك ولا لا نسبك ولا لا يعني أنت من آدم ويقول لو بنك ولا لا ربك النص تقول يا محله أنت كذب وعن ربنا مقصودك عنها أنك هذله سيدا أن كفر آيات القرآن إلهي سبحانه وتعالى والمسلمين توحل والرماية إلهي وحونا الليلة إلهي كعب صدى سبحانه وتعالى إلهي على كعب صدى مرك إلهي كعب صدى مؤمن كأخ وحاد بيا له أوامر كله أول ربع أوامر تسكرين تهذي بل مرين تهذا إنه إله الله سبحانه وتعالى إلهي وحوليه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حد مننا إنك هو إله وجانسمنا مركا كيفية إله لو وجانسماي يقاب إله اللي يسود يبي يوي فربضنتهاي أبي فربضنتهاي إلهي سبحانه وتعالى أنت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قرآن كنتم لمسوك وبكر أبي فربضيني لكن وعن ربنا إله ما حيجوا بالحاروتهاي waxay go'aan tahay cunsur muhiim ah oo kamid ah anaasirta isku hayo makhluuqa la yiraahdo basharka oo ah midnimada ilaahay wuxuu ugu xaaray cabsida ilaahay la karabaahu xaqadu isticmaalaysaan waxa uu isticmaalaysaan isku dumidiina iyo midnimadiina iyo solaashiina ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala wa tasmu bihablillahi jamii'a dhamaantii wada qabsada hadii la yiraahdo marka ayada waxay hadlaysaa midnimada ka hadlaysaa haddii midnimo marka la yiraahdo kaligee maadaha laga dhigo intii laga bilaabo dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare ilaa jaamacad maada waxay noqotaa mustaqil oo madax bannaan haddaan nahay anuka Soomaali haddaan nahay marka maanta wax nooga baahi badan ma laha fahamka awaamirtan ilaahiga subhanahu wa ta'ala oo ah ilaahi inuu midnimo nafaray haddaba إلهي وحوري قبصة حرق إلهي ومحاي حرق إلهي وحيتهاي إن إلهي سبحانه وتعالى عن إسلام في سبب سما يسوع مضى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كل قبصة إنه وحيتهاي من بدونه حتى يوم بدوبي إن مركا
waxay u baahan tahay shuruud bay u baahan tahay waxay u baahan tahay asbaab waxay u baahan tahay cawaamil keento waxay leedahay mubdilaad wax midnimada buriyay leedahay marka hadda ma ahan meeshii cawda aan duruusa ku talaqi lahayn ama ku qaadan lahayn ma aha laakiin waxaan leeyahay maantay waxaan u baahannahay si aan u najaxno adduunyada inaan midowna u baahan inaan dalkaas u midowno qofka isdhahaaya inaad ilaah u addoon noqoto kaliya lee waa salaad iyo soon iyo xaj qofka isdhahaayo ee diiday mujtamaca inuu la midoobo oo ka mid noqdo dhaqdhaqaaqa bulshada ee ku akhrisanaayo aayadiisa ay ku horsato ama uu dhacera u yahay in qaranka la maqlo oo loo hogaansamo qofkii taa aan laga helin qofka waa maqruur waa kadsooyin sidaa darteed waxaynu leenahay ilaahay ka cabsado isgacan qabsada haddii midnimo la helo oo asbaabteedii iyo shuruudeedii la helo waxaa mutaxaqiq ahoo la helayaa najaax maanta isaga sheekaymiin ilahay wuxuu leeyahay واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم حسوسا مرة أدعو لسوء الله كريه سبحانه وتعالى إلهي ما قلت سكينك لكن بن آدم هو ولكن عبد الوهاب وغاس حسين وحقوس الأوين إنا ومديسي سوماليا دياسبرا هكون أولي سويدن وأسيقا كميدة هاي وعلينا مركا إنا إنا نكمل الله أنه إسكو حرنا شهر وحوال برايس لودي بيليه بالنمدا برايس كذا وحاكميدا صبرا كميدا إلا يسوع صبرو وأدو إلى يكونوا ياي وأغلى أخباره أيات كميدا حدان لا يسوع صبرين كلا تاك نفتي صبر وباهين إلا كلا تقوي إلا كلا جيس نفتي صبر يرتو مركو وراك كاملية إذا صبرت وعذاب نفته مركو ولا يال أنت وحنقصه قبينا يا كهذا كمن نمدا وحنا ربنا ندعك لو جيسو ولا يال حدان سومالينا ما أنت يوان رجنا وحي تهاي كلاتك فرقة إلهي وحده ولا تفرقوا هكذا تجينا كواحدين من نمل لجوا إلهي عاسس كواحدين لجاه كلاتك إلهي عاسس من نمل لجاه شقيا ويكفضل بلانتها سلام يسوع ساس الله ينمات ما لم يدخل بهما المؤمن الجنة فلا يدخل بغيرهما من الأعمال قيل وما هما يا رسول الله قال إصلاح ذات البين والإنصاف من النفس ضدكو إن ليسوا إصلاحية وضدكو قلوبتودي ليسوا جل إن ضدك ولاة الأمور كاو إلهي تنظر قدي بين المغلق ونوه كان سنة أنا لا كهرب ولاة الأمور كانوا علمنا إلهي هو بقى ومدى إلهي يقولي إرقن كريواي يعني يقولن كريواي إلهي ما نوكو إرقلي وحلن إله وبقى ما ندع إله أو مدى عدالة الإنسان في رحمته قامية الرفق هو نوين في إجلاعه سيادته قولتي وعنفسه قبلين هذا من اللي يراه قاعد حايو الله نحرسه تحقى ويهوته وهو أمرك بينابي الإله آدم في الميوم ورحمة الله وبركاته aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay sheekh muxiidiin sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin celi markan waxaan u yeerayaa xasan muuse cali qoslaaye oo ku hadli doona magaca guddiga qabanqaabada xafladda quruxda badan idiin soo qabanqaabiya xasan kusoo dhawo mikrofon bismillaahi rahmaani rahiim mudanayaal iyo marwooyin akhyaarta meesha isugu timid isugu jirta rag iyo dumar culamo udiin dhalinyaro hooyooyin iyo odayaasha dhaqanka marti sharafta khaaska ah ee noo joogta cawda ee Soomaaliya ka timid xildhibaanka qof walba waxaan ku salaamayaa diinta islaamka salaanta diinta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamkii dib waxaan halkaan isugu nimid inaan soo dhaweyno wasiirka Soomaaliya looga yimid wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka inaan halkaan kusoo dhaweyno ayaa caawa isugu nimid mudane cabdiwahaab ugaas xuseen mudane kusoo dhawow magaalada Youtubori wasiirka inaan ku kulannay magaalada Catherine Holm
aniga radio tibor markaas kaliya aan ka joogay kadibna waxa la dhahay wax ka soo dhaweey wasiirka waxa dhacday markaan soo dhaweynay meeshan ka dhihi lahay mudane ku soo dhaw magaalada Catherine Holm waxaan dhahay mudane ku soo dhaw magaalada Yitibori kadibna waa ka naqdo dadka meesha joogaan raali geliyo waxaan dhahay inaan Yitibori joogaan ma leeyahay Yitibori aan jeclahay iga raali ahaada markaas ka bacdina Catherine Holm ku celiyay marka waxa la yiri wixii uur ku jecel yahay waxay uur ku jecel yahay afka ka xalaaliyo magta inaan magaalada Yitibori jeclahay iyo Soomaalida degan ay cadeynaysaa taas hadda calaa hal taas waa rumowday hawada halkaan oo noo fadhiya mudane Cabdiwahaab Ugaas Xuseen soo dhawow mar kale waxaan ku sheegayaa Soomaalida Yitibori ee halkaan cawda fadhida waa dadkii hoggaanka Yitibori ahay haday noqoto ururo haday noqoto maaragtay qabanqaabada arrimaha Soomaalida quseeya waa dadkii hoggaanka ahay waa dadkii waxgaradka ahay waa aqoon-yahanadii waa hooyooyinkii waa dhalinyaradii cid ka maqan cawda meesha ma joogto dadkan waa dadkii ay ku weyn tahay Soomaalinimadu ilaa 9 bismillah ay soo wasaare ku xigeen saacado wasiir soo dhaweynta waa intii xasan qoslaaye iyo dadkii ka horeeyay baa noo yiri maahmaha waxaa jirta Soomaalidu ay tiraahdo rag hadalkii waa saddex ama dad hadalkii waa saddex bay noqon doontaa xikmaddu markaas iswaraysi wada tashi bal qodob afreeya oo xikmadihii ma jiro xikmadda hadalku waa saddexdaas Soomaalidu runta isuga sheegto waxay jeceshahay inay is-ammaanto isfaanfaaniso oo qosqososho dhaliilaha badanaa lama sheego haddii dhaliil la sheego xanaaq baa ku xiga maxaa u sheegaysaa camal waynu waalana run ahaantii waynu waalana waalidu wax badan bay soo maraysay mar waa isku waalanay oo annagaa isku fallaynoo islaynaynay mar diinaynu ku waalanay oo 70 diinood baynu la mid annagoo hal diina leh marba meel bay soo maraysay waxa ay ugu qosol badan waalidu hadda meeshay marayso oo maxay tahay dowladda ay u yimaadaan dad Soomaaliyeed waxay dhaayaan annaga beel heblaha dowlad baan nahay noo aqoonso adeero aniga dowlad haddaan aqoonsan karo taydii aan la ahayo dowlad Soomaaliyeed aan aqoonsan lahayo heli lahaay beel dowladana weligay ma arkin mana maqlin ما وانا حماية صار نور كلام تعاون بالريال البعض وانا بالعكس أنا قاعد بلي بين هبلاي دولة بعض وياه أنتوا كهتوا مغلروا وياه أنا والله يا بناي دولة سواليات برادين إن بير دولة أنا ما قرنا يا توفي قرنا يا أبوسو أوكي أني واحد ما مغلا وياه لو نكتة إذا كسر نعنا سوالي محبية بالكلية محبية أخرى صعبة وياه هيلا يا بنينا أنا فكرت إذا هذا كهب دلك الصومالية حتى تطلع قرن اليوم آدم وهو عداني حتى نرى شر للو ذاك وانتي قرص الصومالية قاتل للتجار ودلك النورية أنا جنا أكل بتبادله وأين برانا عن أرجع نصير بآدم كون نورانه أنا يقول فأنت ما غير يالي سين لو تقول ما يالي لكن وهو بكبر معناه يدها بأوصاص عمار waxaa soo qori doono soo dooran doono keeni doono odayaasha qabiilka anigu cod baan la ahay waxaan la ahay waxaan ogahay waa dowlad jirta oo dhisan baarlamaan leh oo doodu dhicin qaran Soomaaliyeed hadduu jirana inay ku dhex wadaan baarlamaanka Soomaaliya odayaasha qabiilku ha keena waxay keenayaan ciidanka qabiilkay keenayaan midkii dadka laayay oo dhulka bay keenayaan kii adduunka qaribay bay keenayaan shaydaan oo dhan bay keenayaan waa maanta واستغفر ربنا كاربود وحد أقصريا إلى قوس لودرين لودر ضد الصومالي ده هو يسيقاني
dad wadaniya oo aqoon leh oo wax garanaya oo beel kasta halkii baarlamaan ama labadii baarlamaan oo ay heshay ka soo qora oo ka soo doorta almiino guddi saas oo kala Soomaaliya in loo sameeyo oo iyagu xildoon ay ee hawsha kaliya loo egbaday laakiin aniga adeerkay hadii la yiraahdo soo qor kii xigay waa kuwa aayadda quraanka oo qabiilka nabaray in Cabdullaahi Kooshi Cigaal Maxamed Warsamaad tahay hebel baa ku xiga hebel habeen ku kaasi xiga markay hebel iyo hebel tirnaan hebel u hiili kuwa nabaray weeye anigu waxaan dhihi lahaa inta aan ugu daayirahay Soomaaliha laga laayo ama laga xiriyo fish laga dhigo inta aan ugu daayirahay oo aan ku jiro baa dhihi قبل وحويان السودان ماشي كمان يعاون ووحوي قضية الصومالي ده قف كده مع السودان وكسبه إصلاح قسمه إياه برضو قال لك يورد استثاره أيون تورا يروم راقل حلوة إياه بركة هذا مركز مركز أردت مرة يجي قبل جوكس أردت مركز مرة وأدني يدلو حاجنا داود وحرة وانية الليل ده دنيا دولة سانقبة تكيدان فريستا تذكر هاي تنجيك سبعة حبة ترى عوشان سبعة أي كتير ياي قلبيان كدولة بيان تبادرنتا إن كستون برودا تمركا إيه ذهب اللوجيو إن كستون للدرجيو أو تومغلوبوا أو إن كستون تعامي يهجوري لو دراسيو من دروس لكما أو جماعة إيه ذهب الله حريه هدلو كتير من كينا بردوجا نولا الكتاب يحيي مهر تعتقي سي دورت أدوار هراجران لا إسكتين إلى دقي إلى بحناوي وكتري هذا الأدوج إلى ننتلقين غير كذا وعد عمر نافان تذكر بودريا إيه أفهمك بقولة داريا راسدي تمر لو ذا كورسلو كولا تيراي وأنا بقول ترى هذا وضع أنتيسي dugaag maaha duunyada markale faraca daanyeeree dulmi la isku raacaa la yidhi doorashagoon hore ee cawaankii la-aan iyo islaam ee badarajeeyey kiristigu wuxuu diidayaan daris wadaagnaayeen dalkana way isla leenahay nimaan doocna garanay qofkii qaladkana asoo qabanee alle garanayba isoo celi وفيه ضرب أصاب وكالمين قطبوينك أقوياء الصومالية أهنا قراعانا عبد الله هنتي وذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقرأ عن رباه إن أسول وهيو وإلى هذا كسر جوي تباري وسيرك جرعسيا يوشلها إسلام مركلا وسيرك حجيك دلك صوماليا بري مسك حجيك آد وحنا فرح سنة هاي نين وكيل رجعة أو رئيس وزراء إن الدولة كان نقضه كحجيك برايم مينستر فرحت وين أيام نوصحي اللي يرى عصب وأقوي هندا إلى أول يكتبوا ليهين إن أي بدلان وجه صوماليا إليهين داعد دالكولا مدينة ولا شقين هي waxaan oran karaa sacaadatu wasiir waxaad qabateen muddadii yaray wax muuqda oo aad u weyn oo aan ku ammaanayno waxaa ka mid ah in burcad berrigii aad ka saarteen muqdisho laba burcad baa jirta mid waa burcad badeed midna waa burcad dhuleed ama burcad berri nimankii xamar laga saaray oo shabaab anigu waxaan oqaan burcad berri ama burcad dhul burcadkii dhulka wey nimankaa muqdisho laga saaray oo aad ka saarteen oo ilaahay dowladdiina ku garab galay
aad baan idinku hambaliyaynaynaa waxaa kale oo aad idinku hambaliyaynaynaa in caalamkii iyo Soomaaliya aad isku xirteen oo aad soo jiidateen in caalamku maanta indhihiisa uu furo oo u soo jeesto dalka Soomaaliya arrimo badan maalin walba qaranimada calaamay leedahay waxaan aad iyo aad u faraxsanahay golihii muftida iyo madadaalada oo mar aan u ahaantay maareyn in maanta loo magacaabay maariyihii guud ee golaha muftida iyo madadaalada taasina waxaa weeye yaro muftidii iyo madadaaladii waxay ahayd boortaboojaha ama samaacadda Soomaaliya ahayd samaacaddu waa baktiisnay haddii la soo nooleeyay samaacaddii aad baan ugu faraxsanahay midda kale waxaan rabaa waxayna ka sheego arrin maalmaha laga dhawaajinayay oo shirka lana ku saabsan oo gumaysanaysa iyadu hadday dalbato burcad badeed shabaab iyo mooryaan waa dadka rabay inay gumaystaan haddii iyagu dalbadaan ay rabaan maa cid rabta male gumays waxaa la gumaystaa ninaan hub haysan oo maskiin ah oo sidii waagii hore naloo ku yimid ah talaabada waxaa weeye adduunka indhihiisaa ku soo jeedinayaa waxay ahayd arrintaa dadka wada waxaa weeye nimankaan sheeganhaya maalin walba madaxweyne cusub oo sii marhaya ilaa 40 madaxweyne oo loo diiday inay ka qayb galaan shirarka oo rabay inay shirarka laga qayb geliyo kuwa ayaa faafiyey madaxweynayaasha isku sheegaya oo ah Soomaaliya faraction u qaybinaya sii kala dhantaalaya hadalkayga waa ku dheeraaday waxaan ku soo gabagabaynayaa saxaafadda wasiir hambalyo laga gaarsii wasiirada cusub hawshoodu waa muuqataa dhab ah inaan dalkii u noqono awal ka quusanay awal aweysis baa loo yimid oo ah dalkii rajo malahay nin walba meeshaada adkayso haddase rajo waxaan aragnay war wadankii waa ficnaanayaa nin walba isdiyaara waa la noqonayaa marka aad iyo aad baad mahadsantihiin intaas oo soo gabagabaya aqoon-yahan Cabdicasiis Xuseen Xirsi martida sharafta oo naga timid Soomaaliya ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo xildhibaanka afadiyo runtii waxaa wax lagu farxaa nin annaka naga mid ah oo dala joogi jiray waddanka kan ogna xaaladda Soomaalida ay ku nool yihiin iyo sida ay yihiin hadduu maanta jaga fiican ka qabtay oo ilaa uu ka gaaray ra'iisul wasaare ku-xigeen oo wax lagu farxo runtii sida raggii ugu horreeyay ay sheegeen waxaa muuqato iddiilo iyo farxad dadka Soomaaliyeed u soo hooyatay waxaana keenay sidaan qabo juhdiga ay geliyeen dhalinyarada ka tagtay dibadda oo waddankooda waqtigooda ugu horay isla markaasna isku dayay inay isbeddel ka sameeyaan waddankii taas waxa weeye wax lagu farxo waa runtii waana waxaanu ka aragnaa TV-yada wax qarsoon ma ahan oo wax dadkoo dhan u muuqda weeye dowlad meel ay qabsato waa laga yaaci jiray waa laga carari jiray iyaga kuwa wax laga cabsan jiray maaragtay kuwa soo duulay laakiin dadkii baa hawada usoo noqonaya marka taas waxay ku caddaynaysaa dadku inay dareemeen in meesha dowlad waxyaalahaas baa keeni kara marka taasaaba kuu muujinayso wixii aad qabateen waxay qabateen wax qarsoomay oo ah dadka dhan baa u jeedo wax ka soo qabto kulay ka tagi maysiin meesha waxa uu qabo wala barteen laakiin waxaan ugu waalin lahaa lixdood Allah ka dhigay balwada kala taban soo shaqeeya dilay ya ila muuqata waxa weeye wax weyn oo haray ma jiraan wala naflacaali wax ay hayaan ma jirto naga ka ilmaha soo siraa ay u soo dhibaan bom meelaha qaarkood wax ka qarxiya taasna wax dheer wax soconaya ma maanta marka rajadu way fiican tahay idiladu waa badan tahay marka waxaan qabaa niyadda Soomaalinimadeena maartay iyo niyadda u qabno
oo Soomaalida ku shaqeynaa diiran waxa hadda ka dambeeyay anaga bedeli karna maanta waxaan ku bedeli karnaa waxa taas baan ku soo gabagabeynaya aad iyo aad baan mahadsantihiin dhegeysiga خير رسول إن شاء الله وزير وحن كعب سنيا إن النبي قرسي سلام كشي الله كسر قاضي دولة كل جيل دولة تكسرنا نين تاجر سنجيل كل كذا ليلهم. كأهنا وزير كوزارة الجناعسية iyo warshadaha dawladda kumeelgaarka ee Soomaaliya mudane Cabdi Wahaab Ugaas Huseen Ugaas Khaliif waxay soo socdaa kooxda hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo noo madadaalin doonta sidoo kale waxaa noo soo socota fanaanada Soomaaliyeed Sacdiye Soomaali iyana waxay noogu tala gashay laakiin aan ka hormariyo magaca gabdhaha Soomaaliyeed oo ku hadli doonto Shamsa Daahir inay waxyaabo kalmadana soo jeediso ku soo dhawaad Shamsa waxaan leenahay soo dhawow wasiirkeena ganacsiga wuxuuna waa noo yidhi si qaas ah iyo si gaarintaba waxaan kaloo maaragtay maasha allah si gaara xasuus gaara noo leh annagana rajada geysay adoo isku dhanala joogin hadda wasiir noqotay annaguna waa soo sharaxanaa midda labaad oo xasuus gaar aniga mar walba qofka Soomaali ka yimaad ilaahay waxay tahay qorraxdii ila ka timid ayaamaha markii TV-ga qaranka la sameeyay qorraxdii aan ku soo badatay ma sha Allah barnaamijyadiyo live markaan aragno mar walba waxa weeye nimcadaas ka socota qalabkii iyo qorraxdii iyo xasuustii iyo waxyaabo badan oo lagu soo celiyay marka waa ilaahay hadis intaas ka bacdi waxaan muxuu ahaayey anagoo ku hadlaynaa gabdhaha magaalada Youtubori hooyooyinka ama nooc walba ay noqdaanba soo dhawaada ku leenahay mid qaas ah oo gabdhaha ka timid aad qaali u ah oo waddanku uu sugayay hadduu ilaahay qadar qof walbana waa ka go-an tahay hadduu ilaahay idmo intuu tabartiisa wuxuu qaban kara inuu u qabto taas waa fariin aan u dirayno dawladda sharafta badan iyo dadweynaha ay ka go-an tahay maanta inay cadawga iska dulqaadaan inay noloshii la yaqaanay ay u soo laabato waddanka waxaan dhammaan mas-uuliyiinta aan u diraynaa hambalyo gaar ahaan waxaan u diraynaa haddaanu nahay gabdhaha Youtubori masartay tarsan gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Axmed ilaahay adduun iyo aakhiro waxa ku shafaanu leenahay geesi baa tahay cadawgaaga ma tarmaanu leenahay ilaahay cadawgaaga ma taro ilaahay geed had weyn baad samaysay garabkaaga gacalaan ilaahay kama dhigo waan ku qashbinaa waan kugu faraxnaa waan hadalkaaga waan ku murgoonaa wallaahi maskaxdeena wax weyn ku reeba talaal baa samaysay qalbiga dadka ku taami doona insha Allah caruuruhu waxa xasuusan doonaan ilaahay ajir badan ha ku siiyo geesi baa tahay laakiin geesi gacan way ku leeyahay markii insha Allah waxaan ku sheegaynaa wax alla waxaan awoodno hadduu ilaahay inaan garabkaaga taaganahay hadday dhaqaale noqoto hadday noqoto muxuu ahaayey xasuus hadday noqoto nooc walba inaan garabkaaga taaganahay dowladdiska inaan kaala qayb qaadan doono hadduu ilaahay awoodno iyo nabadgelyada intaba annaga waxaan hadlaynaa gabdhaha magaca Suudaan aad iyo aad waxaan moodaa inaad naga dhaqday ciidkii aan ragga u qabnay ka fariisteen weligood eedaysa saaray inaan saaxiibayaan daa saarnoo wasdifaacan wax walbana ayagaa sameeyey taasoo wax badan baad ka bedeshay nin boog weyn oo ka mida cudurrada ka dhaqay baa tahay nimanka Soomaaliyeed ilaahay garabkaaga ha galo annaguna kaala hari mayna hiil iyo hoo hadduu alla u qadaro meeshaas tawad ilaahayna ha kula wado cadowgaadana ilaahay ha qabto cadow badan baad leedahay sida waatay waa dad badan baa sabta ku jira hadduu ilaahay idmo waa ku wejinayaa mikrofonka insha Allah
dadkaas rafta badan oo xiriirka noo sameeyey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa loo diri samaadkeeda kusha insha allah banaadir midnimo fooreyni horjoogayaasha ururka waan mahad celinaynaa axmed nuur micraaj iyo niman badan codsi oo ka mid ah dhallinyarada isku hawsha inay soo celiso dhaqankeennii lumay ee dhallinyarada qurbaha yimid uu sheegay in ciyaaro iyo hidda iyo dhaqan iyo weliba aan leenahay waxyaabo fara badan oo lagu xasuusto markan ururka banaadir midnimo fooreyni iyo